ورحمة الله وبركاته. عليك خليك سوري وهذا جرك كمان أذكر بدأ ذلك هذا الشر هذا حتى لو ذاك ما أنت معن حياة. وعادة مقالة السنغال أيوة حكت على شيء إنه بن هذه السنغال وأفريقيا. أوكي هوا هات محمد جبر أيا أديك عذر وحاكون عاي. هذا يا جندي هذا يا عذر كدوسد وحلا حاكون عاي جبر تان دوسد دوستو ودادا لما مريكارو أورك قرونك كبحة دوسد إن بعد ما. أوكي جبرتاس أيا ربع إن أنكلو دا قصة أصحابك ودعد إياه وحيالها أو جبرتاس معنا عذر كاس دوسد كوريد. اوكي جبرتان اديوا جبر سنغاليس اديغا دوسدا dib waxay ku qabtaa doosada wadada de socod ee doosto ayaalaheed oo dhan waxa maraayo hal mar ay urkii ida eedisi sangra wada qabsaa ceeb badan iyo falaax badan ay la kulantay okay aan wada daawno gabadhii dhoosadeedu ay badbaadisay magaalo iska dhan tuulo ku taala galbeedka Afrika gaar ahaan dalka Senegal ayaa hadda ka hor waxa ka dhacday قصة ولي لغا sheekeeyo oo la yaab leh waxa jirtay gabar la yiraahdo Zuri oo kamid ah dadka deegaanka Zuri waxa ay ku dhalatay maqaadiir cajiib ah ama xanuunka la yiraahdo gastroparesis taas oo ah inaanay kala joojin karin dhuusada haba dhuustee waa dhuuso ur qarmuun oo aaga waxa jooga oo dhan ay kala cararayaan dhakhtar dhaqameed kasta waa loo tagay cuntada ay cunayso waa laga bedelay qur'aan waa lagu akhriyay maadaama degmadu ay muslim ahayd wax kasta waa lagu sameeyay laakiin gabadhii mar kali ah arinteedii xal waa loo waayay waana lagu guulaysan kari waayay caruurtii ayaa bilowday in ay ka dabayaacaan si ay uga maadeystaan dadka waaweyn qaarkood ayaa inta halka ay joogto ay isa soo dhoobaan oo sidii giraan oo kale dhaxda ay u gashadaan caayi jiray iyaga oo ku oranaya ereyo xunxun oo lagu bahdilaya inanta aan quruxda lagu gaarayn waxba ka khaldanayn ee fariida ah laakiin dhinaca dambe neeftu ay ka socoto Zuri waa ay dhibsatay bahdilka iyo caayda degmada kaga socota mana taqaana meel kale oo ay aado ugu dambeyn waxa ay go'aansatay in ay guri cariish ah ay ka dhisato meel degmada geeskeeda ah si ay uga nabad gasho dadka dhibay ee ku daba jooga wax rabaani ah oo aan ahayn cilad iyada ka timid tuulada waxa inta badan soo weerari jiray libaaxiyo looga taag waayay xoolaha nool sida looda iyo ariga kaas oo wax badan ka laayay libaaxu marmar dadka ayuu weeraraa oo dhowr qof ayuu sidaa ku cunay habeenkii dambe ayaa waxa libaaxyadii ay ka soo galeen dhankii geeska ahaa ee ay Zuri deganayd libaaxyadii ayaa weerar ku soo qaaday gabadhii si ay u cunaan iska caabin ayay samaysay oo Zuri waxa quruxda u dheeraa inay geesiyad ahayd galgaladkii iyo rafaadkii ee is haysteen libaaxyada iyo gabadhu ayaa hal mar sidii caadada u ahayd qoftii Zuri ahayd dhuuso ku waalatay libaaxyadii ayaa markii ay ku soo boodeen dib uga cararay kadib markii uu waxyeelay urta dhuusada iyo weliba shanqarta ka baxaysa dib ayay kayntii ay ugu laabteen libaaxyadii oo halkaasi guuldarro kaga dhacday Zuri ayaa ku sii daysay dhuuso sidii qiiq oo kala ah ilaa ay libaaxyadii ay ku hafteen oo ay naftooda ay la baxsadeen habeenka oo kali ah ma aha ee tuuladii libaax dambe dib looguma arag oo waa ka haajireen deegaanka oo dhan Zuri ayaa qoyskeeda u sheegtay wixii dhacay xalay iyada oo tusisay nabarro ay libaaxyadu ay gaarsiiyeen qoyskiina dadkii kale ayay uga sheekeeyeen ilaa tuulada oo dhan laga ogaaday in Zuri ay tahay qofta tuulada ka xoraysay libaaxyada laayaanka ah dadkii ayaa ku farxay oo u mahad celiyay Zuri kana yareeyay faquuqay cidlada dhigay ee goonida dajiyay عادوغاتا adiga horta cudur horta ilaahay oo ku keenay oo rabbaani ah ay dadka gabartaan ku aflagaadiyeen saas ay tahay saad maqashi tuuladana waxa badbaadisay wariida waxay ku badbaadisay loo dhiya gabartaan macnaha way dagaalantay libaaxay dishay ma ah sheekadaas way ka darantahay waxa loo dhahay gabartaan waxay ku badbaadisay dhuusa ee dhuusta ee libaaxi iyada cuni lahaay libaaxi yaa ordo dhuusa ku urbada libaaxi ayaa jabsad urki gabarta ka soo baxay hadoo arkay asoo usir baqti yaa soo raasato illa insaan wada ognan libaaxa ma jeclo wax baqti macna wax hortiis dhintay ma jeclo uraay illa libaaxa hatta xoolo neef hortiisa oo bahala kale ay cuneen
dib dambe uma cuno libaaxa wuxuu cunaa shay asiga nool asiga inuu disho ayuu jecel yahay okay gabartan aad u jeedo aan soo rabay inuu dilo laakiin gabarta urta ka soo baxday ayaa wax walbo bedeshay okay no sii wad tuuladii ayaa waxaa ka soo baxay wiil la yidhaahdo cumar ama omari sida ay iyagu ay ugu dhawaaqaan kaasi oo diyaar u ah inuu guursado zuuri gabadhu hadal kama gelin guurka oo howraarsan ayay tidhi laakiin shuruud ayay waxa ay uga dhigtay in uu degmada uu ka raro oo uu meel kala geeyo si ay xal ay ugu helaan ciladeeda iyaga oo la kaashanaya dhakhaatiirta sida dabiiciga ah wax u daaweeya waxa ay degeen meel jasiirad ah oo uu ku nool yahay nin Jamaican ah oo ku takhasusay dhirta iyo sida la isugu daaweeyo nasiib wanaag zuuri daawo uu siiyey ayay dhuusadii kaga joogsatay oo waxa ay noqotay qof caadi ah dhakhtarkii ayaa fariidnimada zuuri iyo maskax furnaanteeda intuu la dhacay ayaa waxa uu hamiyey in cilmigan ilaahay baray inuu baahiyo isaga oo gabadha baray sida daawo dhaqameedyada dhirta ka samaysan dadka loogu daaweeyo degmadii ayay ku noqdeen zuuri iyo omari oo isla xaragoonaya iyada oo aan gabadha waxba ka qaldanayn ku darsoo gabadhu markan waa dhakhtarad tuuladii ayaa ixtiraam dheeraad ah siisay zuuri waa halkii lagu bahdili jiray ilaa ay degaankii oo dhan ay ka noqotay qofta keli ah ee xikmadaha laga qaato isla markaana la weydiiyo isku daaweynta dhirta ugu dambayn zuuri iyo omari waxa ay noqdeen labada qof ee ugu hantida badan ee laga hibaysto si kasta iyo wax kasta oo ay gabadhu ay soo martay dadka ay zuuri xanuunada ay ka daaweysay waxaa ka mid ahaa kuwii caayi jiray ee ay dartood magaalada uga qaxday ugu dambayn qofnaha ku jeesjeesin waayo ma ogid waxa ay berrito ay la iman doonto iyo waxa mustaqbalka dhici doona midna maxaa yeelay cirib dambeedku ma aha wax adiga gacanta kuugu jira okay waxaad ogaataa gabartaas aad maqashay adiga gabartii shalay la caahay inkastoo waxyaalo badan ay samaysay haddana magaalada ay u tagtay ay soo baratay cilmi iyo daawo ay kasoo heshay okay waxaad ogaataa qofka adiga xanuun rabbaani ah ku dhacay adiga inaad ku jeesto macna sheekadahan nuxurkeeda dhan wuxuu yahay maxay tahay qof wuxuu ilaahay ku ridi adiga in aad ku jeesan waxaad ogaataa qofkan wax walba ayuu naka karaa adiga wuu caafimaadi karaa beridan ayaa kaa geli karto ha ahaato adiga maanta qofkan cudur uu ilaahay u keen haddaad ku aflagaadeyso beri qofkan hadduu wax naqdo adiga dan ee kaa soo gasho adiga maxaad dhihi kartaa shalay dadkii iidu kumaaleysahay ayay dib u daaweysay iyadoo naqatay gabar furfuran cudurkan ilaahay oo ka qaaday naqatay qof dad dhirta ku daaweyso oo kasoo baratay nin Jamaican ah tuuladii ay dib ugu soo laabatay dadkii shalay caahay in micnaha wax ay u qabato caafimaadkood ay ka taxadirto ayuu ilaahay xaal waxaad ogaataa qofka wanaagsan adiga ma gari kartid laakiin qofkan haddii adiga cudur uu ilaahay u keen aad ku xugmiso aad ku aflagaadeyso ilaahay wax walba wuu awoodaa okay waxaan leeyahay qof micnaha wuxuu ilaahay u keen in aad ku aflagaadeyso inay bataatuma ay tahay qalada waxaad ogaataa gabartan waxyaalo badan ay samaysay saas ay tahay marnaba iida micnaha dadkii iida shalay caahay marnaba kuma fikirin gabartan in dadkan shalay ay ku dhibaateeyeen shalay ay waxaan ku geysteen maanta ka aarso kelmad la dhahay niideed ma isu soo gelin waxaas hore ay ugu socotay micnaha dadkii shalay aflagaadiha inay daaweyso ay caawis ay diyaar u noqoto okay hore inta la joogto waxaad leeyahay walaal qaali noo shar gare inta naga maqan waxaad leeyahay walaal qaali soo dhawaaw waxaad leeyahay 300 ayaan u socdaa waxaad leeyahay walaalahay qaali iskaraab noo saar bye bye